si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horreeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan oo ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaas ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada laga Cusub sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaani ah oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Cusub uga iibisay afarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Suugaan iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suugaan ayaa dabadeed sanadku markuu 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysa wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isbalaadiso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa kamid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada Berbera waxa kale oo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayay loo oran jiray Milk uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgii ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galay waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Ali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar. sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho, Warshiikh muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba
waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano abasiiniya amaba etoobiya markii uu arkay damcii reer yurub ayaa boqorkii etoobiya ka talinayay wakhtigaasi amanlik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa wakhtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yidhi etoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo etoobiya sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay etoobiya inay mustacmaradu tahay dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday nin la oran jiray Major Nerozani ayaa wadahadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana etoobiya talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeynaya dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 Ingiriisku ugu ogolaaday. sanadku markuu 1897 ayay Itoobiya iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 38 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horreeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abril 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa Wedwed iyo Bohoole 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdulla xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa kamid ahaa magaalada Harar ee dalka Itoobiya Muqdisho Suugaan iyo Maka intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed. sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada